wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya aaga aadan cadde xarunta Avisioni lagu badalsanaa in uu ka dhici doono shirka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba aanan ka soo qayb galin madaxweynayaasha Dani iyo Madoobe. shirkaas waxaa saakay galinkii hore yimaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug. ruhantii waxaan meesha aanan soo xaadirin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Dani. sababta ay Dani iyo Axmed Madoobe ay shirkan u diideen waxaa ka mid ah maalin horeed ay BBC-du Maxamed Saciid Dani BBC-du warbixin uu siiyay ku sheegay in la doonayo in lagu qaarijiyo shirkaas oo Farmaajo ka damacsan yahay in uu Axmed Madoobe isaga bedelo. sidaa darteed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyaduna maanta ayay soo xaadireen shirka. waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay ifafaalihii shacabka muujinayeen shalay ahaa in wada hadalku iyo wada xaajoodka lagu dhameeyo.